بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idin la wadaagayaa magacaabis uu sameeyay madaxweynaha dawladda Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu soo saaray xeer madaxweyne oo tirsigiisu yahay LR eber hal kuna taariikhaysan 31 bisha Maarso 2026 waxaan ku bilaabayaa magacaabista golaha xukuumadda wasiirada kow Cabdirashiid Barkhadle Warsame wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Cabdi Xirsi Cali Qarjab wasiirka arrimaha gudaha محمد عبد الرحمن فرولة وزيرك وزارة عافيماتك بر يوسف فاتح وزيرك وزارة قرشينتا عبد الفتاح وقاس ياسين وزيرك وزارة دولست هودا إيا قرومدا هدن سعيد حسن وزيرك وزارة هوينك يارمها قويسك فرحان علي حرسي وزيرك وزارة ورفافينتا يسقارسينتا سعيد علي جامع غورشيل وزيرك وزارة حنانة حولها إيداقة عيدروس أحمد فارح وزيرك وزارة الديغانك يسبدل كعملada محمد عبد القادر دونياله وزيرك وزارة كلميسيغا iyo kheyraadka badda عبد الناصر يوسف حاجي حرسي وزيرك وزارة غرغارka عمر عبد السمد يوسف دوح وزيرك وزارة beeraha iyo waraabka محمود عيديد dirir وزيرك وزارة dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska waxaan u gudbayaa wasiir ku-xigeenada أحمد محمود أحمد قحية وزير كحيجينكا وزارة عدالة يا أرمها الدينتا عبد الرزاق محمد محمود وزير كحيجينكا وزارة أرمها جدها فدرالكا الديمقراطية عبد الرحمن يوسف فارح وزير كحيجينكا وزارة أمنية يديدي آرتا أحمد ياسين صالح وزير كحيجينكا وزارة مالية أحمد محمد بلحن وزير كحيجينكا وزارة مالية محمد حسن سعيد وزير كحيجينكا وزارة قرشينتا مصدق محمد مصدق وزير كحيجينكا وزارة وحبرشدة مريم عثمان أحمد فنقاسي وزير كحيجينكا وزارة عافيماتك إنجنير محمد علي إسماعيل وزير كحيجينكا وزارة دكدها بلا محمود أحمد قبوسده وزير كحيجينكا وزارة ورفافينتا عبد الرشيد عبد الرزاق عبد وزير كحيجينكا وزارة كلوميسيغا iyo kheyraadka badda حسن جامع إسماعيل وزير كحيجينكا وزارة حنانة xoolaha iyo daaqa عبد الرحمن خليف فارح وزير كحيجينكا وزارة tamarta iyo macdanta محمد سعيد صالح وزير كحيجينكا وزارة deegaanka iyo isbedelka cimilada أحمد سعيد قلمبي وزير كحيجينكا وزارة beeraha iyo waraabka رياض أحمد علي وزير كحيجينكا وزارة غرغارka محمود محمد داد وزير كحيجينكا وزارة dhalinyarada iyo sportska waxaan haatan u gudbayaa xubnaha wasiir dawlayaasha فارح محمود أو عثمان وزير dawlaha madaxtooyada ee arrimaha qurba joogta iyo dibadejinta عبد الرحمن محمود عثمان وزير دولها وزارة هولها جود إيو جريينتا محمد محمود عثمان وزير دولها وزارة مالية محمد جامع عبد الرحمن وزير دولها وزارة قرشينتا هرمرينتا دقالها يحريرك عالمية علي محمد عثمان وزير دولها وزارة عافيماتك إنجنير محمد عيسى اللعلة وزير دولها وزارة دولست هودا إيو قرومدا عبد القاني أحمد إسماعيل ديرو ديلي وزير دولها وزارة كلوميسيغا iyo kheyraadka badda محمد عبد الكافي محمد وزير دولها وزارة حنانة xoolaha iyo daaqa سعيد محمد أواري وزير دولها وزارة beeraha iyo waraabka أمباسدور محمد أحمد عويل وزير دولها وزارة tamarta macdanta iyo biyaha نجيب برخد ورسمة وزير دولها وزارة ورفافينتا يسقارسينتا مختار أحمد أضي وزير دولها وزارة ديغانكا يسبدل كعملada أحمد إبراهيم عوالي بيد وزير دولها وزارة ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga
waxaa intaasi ku eg magacaabista xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Puntland sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta soo saaray xeer kale oo ah tirsigiisu uu yahay eber 2 kuna taariikhaysan isla maanta 31 bisha Maarso 2026 kaasi oo ku magacaabay la taliyayaal sare xisaabiyaha guud iyo agaasimaha bangiga dowladda waxaan ku bilaabayaa mudane Cabdijamaal Cismaan Maxamed waxaa loo magacaabay la taliyaha sare ee madaxweynaha dhinaca amniga Ali Cabdiwaaxid Xuseen waxaa loo magacaabay xisaabiyaha guud ee dowladda Puntland Dayib Ali Maxamed Faarax waxaa loo magacaabay ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee dowladda Puntland agaasimayaal Caarshe Maxamed Siciid waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Puntland Cabdirasaaq Axmed Maxamed waxaa loo magacaabay gudoomiyaha shaqaalaha rayidka Maxamed Maxamuud Cabdullaahi waxaa loo magacaabay gudoomiyaha bangiga dowladda Puntland Faysal Cabdullaahi Warsame Murcanyo waxaa loo magacaabay agaasimaha bangiga dowladda Puntland Ali Yuusuf Faaraxna waxaa loo magacaabay agaasimo ku-xigeenka bangiga dowladda ee Puntland sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu isla maanta soo saaray xeer kale oo tirsigiisu yahay eber 3 kuna taariikhaysan isla maanta 31 bisha Maarso 2026 xeerkaasi oo madaxweynuhu uu ku magacaabay gudoomiyaal gobol Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari Faarax Maxamed Cabdullaahi waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Bari Faarax Salaad Ubayd waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Bari gobolka Karkaar Cabdullaahi Ismaaciil Cismaan waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Karkaar Ali Xuseen Maxamuud Soomaali waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Faarax Ciise waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Highland Muuse Saalax Guuleed waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Raas Casayr gobolka Nugaal Cabdiqaadir Ismaan Samatar Foodcade waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Nugaal gobolka Mudug Cabdiweli Jibriil Bayle waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiqaadir Warsame Kooshin waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Mudug Mukhtaar Cabdikariim Cilmina waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug intaas ay ku egyihiin magacaabistii uu sameeyay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani xeerarkan waxay dhaqan galeen markii uu madaxweynuhu saxiixay waana saxiixay waa mahadsantiin